السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waayahan dambe waxay soo taraya weydiimo ku saabsan qadarka oo ka imanaya dadka diinta ka shakisan iyo kuwa dibadda ka jooga. weydiimahaasina waxa ay u dhigan yihiin haddii uu Ilaahay wax walba ii qadaray in aan sameeyo oo uu xumaan inaan sameeyo ii sii qoray marka aan dhintana inta uu xumaantayga xisaabinayo inuu cadaabi geeyo haddii uu ii sii qoray miyaanu Ilaahay dulmiyin. qadar macnihiisa luuqadeed waa arrin in si hufan oo murtiyeysan oo dhammaystiran loo qabto ama loola socdo oo looga warhayo arrimihiisa waxaana loo daliishadaa aayadda qur-aanka ee ah innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax walba qadar xadidan ayaannu ku abuurnay. macnihiisa sharciyeed ama macnihiisa erey bixineedna waa ogaalka uu Ilaahay intii aanu adduunkanba abuurin wax waliba sida ay u dhacayaan iyo xogaha ku saabsan oo dhammaystiran uu sii ogaa kadibna arrimahaas uu sii ogaa inay dhacayaan oo dhan ayuu sii qoray oo looxul maxfuudka uu Ilaahay ku sii qoray isaga oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu tusaya awooddiisa uu ku og yahay xataa mid kasta oo inaga mida inta neefsi ee u hadhsan. qadarka aynu haddaba labadaa weji u kala qaadno. weji waa ka ah inuu Ilaahay wax walba in cayiman adduunkan ku abuuray oo haddii intaa wax dheeraan lahaayeen aanay noloshu sidan ahaateen. tusaale hawadeenna aynu qaadanno ee nuugno oksijiinta ku jirtaa waxa ay ka tahay 120%. sayniskuna maanta waxa uu caddeeyey haddii ay ka badnaan lahaydna in wax wal oo adduunka guudkiisa saaran oo guban karaaba ay guban lahaayeen haddii ay ka yaraan lahaydna inaanay nololiba jirteen. qodobkanina waa ka ay ka faalloonayso aayadda uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax walba waxaannu ku abuurnay qadar cayiman iyo sidoo kale wa kulla shayin cindahu bimiqdaar wax waliba Ilaahay agtiisa qadar cayiman ayay ku leeyihiin yacni wax walba Ilaahay si xadidan ayuu u abuuray. abuurtaasuu Ilaahay sida xadidan u abuurayna wax dhaliila male oo koonka aynu ku nool lahay iyo qaabka uu shaqaynayo wax aynu maanta odhan lahayn in laga bedelo ayuu ku wanaagsan yahay ma jirto. haddii aynu nidhaahno meel cayiman wax laga bedelana nolosha koonka oo dhammi way khalkhalaysaa. taasi waxay ku tusaysaa awoodda Ilaahay iyo waxa uu qadaro in sida ugu quruxda badan ee habboon uu qadaro. wejiga labaad ee qadarku waa ka arrimaha ina haleelaya ee inagu dhacaya ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaane oo waa tahay qolyaha qadarka dhaliila leeyihiin haddii Ilaahay ii sii qoray inaan dambi sameeyo oo hadhowna uu i cadaabo ilaan Ilaahay rabitaankiisa ayaan ku soconayaaye sow isagu ima uu dulmiyin. si aynu dhallinyarada ugu soo dhoweyno qodobkana waxaan leeyahay kaba soo qaad filin ayaa daawatay xasuustaaduna aad ayay u sarraysaa waxa lagu yidhi bal dhacdooyinkii filinka noo qor waad qori kartaa daba iyo dacal amaba adigii ayaa mar labaad ku ceshaday filinkii daqiiqad kastaba daqiiqadda ka dambaysa waxa dhacaya waad ogtahay oo waad ka sii faalloon kartaa. taasna macnaheedu ma aha inaad filinka ku qasbayso inuu sidan u socdo ee waa inaad ka warhayso sida uu u dhacayo oo aad hore u ogeyd oo aad ogtahay aktarkaasi feerka uu ninkaa ka jarayo qaabka uu uga jarayo marnaba inaanu isbedelayn ee uu mar walba qaabkaa uga jarayo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ina abuuray wuxuuna ina siiyey xorriyad buuxda iyo rabitaan inoo gaara balse intii aanu adduunkanba abuurin waxa uu sii ogaa wax waliba sida ay u dhacayaan iyo sida ay u shaqaynayaan. kadib Ilaahay wuxuu sii qoray uun arrimahaas uu ogaa ee ahaa in aad sidaa falayso oo marka aad halkaas soo gaadho aad dhankaa u leexanayso adiga oo rabitaankaaga ku maraya. qadarkuna waa kaas ee maaha inuu Ilaahay sanka kaaga tolay oo kugu qasbay inaad waddada xun khasab ku marto. si badheedha ayuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka iyo xadiisyada nebigaba inugu soo tabiyey inaanu cidna dulmiyin. waxaana aynu qodobkan ku caddayn karnaa mar ay saxaabadu nebiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyeen haddii cid waliba waxa ay falayso iyo halka ay ku dambaynayso loo sii qoray maxaynu iska dhibaynaa ee ka cibaadaysanaynaa. waxa uu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi camal fala qof walba waxa loo fududeeyey wixii loo qoray yacni qof walba waxa u fudud dhabbada u qoran inuu maro waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sii ogaa inaanu addoonkiisaasi marnaba dhabbada ka leexanayn sidaas ayuuna ugu sii qoray. halkana dood ayay ka keeneen rabitaanka xorta ah yacni Ilaahay ima uu siin rabitaan xor ah ee waddadii uu i jeexay ayuun baan ku qasbanahay in aan maro iyadana waxaan ka leenahay rabitaanka xorta ah macnihiisa marka aan la xumaynayn ee sida uu yahay loo soo qaadanayo waa in wixii aad doonto aad samayso oo aad u madax bannaan tahay hadhowna natiijada kaaga timaada aad xamisho
haddii ay tahay ujeeddadu ilaahay rabitaankii xorta ahaa ayuu iga qaaday oo wixii uu ii qadaray ayuunbaan ku soconayaana waxaan weydiinaynaa qolyahaa sidaa ku doodaya ilaan waadigan ilaahay wax ka sheegaya ee qadarkiisii dhaliilaya ee og inuu ku abuuray oo waddadii uu kuu jeexay aadan ka leexanayn ee weliba diintiisii uu soo dejiyey u badheedhay ee ama fikirka kullidigaa qaatay amaba mulxidka noqdae haddii rabitaankii xorta ahaa lagaa qaaday waxaas oo awooda xaggee ayaad ka keentay se falalka aad samaynayso ma cid ayaa qori kugu haysa oo kugu qasbaysa inaad ama wax aydo ama wax ammaanto ama xumaan samayso ama wanaag samayso ta kale xaggaad ku aragtay hoggaamiye dadkiisa uu ka awood weyn yahay oo aanay waxba u geysan karin isaguna uu rabitaankii xorta ahaa ka qaaday oo aanu doonayn jidkaa uu jeexay mid ka gedisan inay maraan ama sida uu la doonayo si aan ahayn inay sameeyaan oo haddana dadkiisaas ku leh miyaydinaan fikirayn miyaydinaan caqli lahayn miyaydinaan waaqica idinku xeeran ku wax qaadanayn intaaba waxa dheer ilaahayaga subxaanahu watacaala aad leedihiin rabitaankii xorta ahaa ayuu dadka ka qaaday si badheedha ayuu qur-aanka noogu sheegay inaanay diintu qasab ahayn ee qofkii doonaana uu hanuuni karo oo jidka toosan raaci karo qofkii doonaana uu ka leexan karo oo waddadii la qumanaata ee la toosnaata uu mari karo mid walibana uu xamilo oo ku qanco natiijada uu ka dhaxlo rabitaankaygu inuu ii madax bannaan yahayna aayaddaas ayaa igaga filan waxaan weydiin lahaa asxaabta ku doodaya rabitaan xora ma lihi miyaydinaan arag kuwo islaam sheeganaya oo ilaahay caayaya ama wax ka sheegaya ama dhaleecaynaya shareecadii uu soo dejiyey amaba u shirki samaynaya oo wax kale caabudaya iyo idinkiinan iminka wax ka sheegayaba haddii uu ilaahay rabitaankii xorta ahaa idinka qaaday oo aydinaan xorriyaddiinna ku soconayn sidee ayaad arrimahaas oo dhan u samayn kartaan ilaan dad la maamulayo oo bilaa xorriyada ayaa tihiine albaabadaas oo dhammi haddii ay soo xidhmeen waxaa jirta dood kale oo halkanna ka soo ogag yeelata oo tidhaahda wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allaahu rabbulcaalamiin idinku dooni maysaan ilaa uu ilaahay doono rabbiga caalamiintu waxaana ay ku doodayaan mar kasta waxaana hortaagan rabitaanka ilaahay taasna waxaynu ka leenahay aayaddan marka la soo qaadanayo ee lagu doodayo wax laga leexiyaa dhabbihii ay qaadaysay ee tafsiirkeedu ahaa asalka tafsiirka aayadduna waxa uu ka yimi markii uu ilaahay soo dejiyey aayadda kale ee ah liman shaa'a minkum an yastaqiim kii idinka midka ah ee doonaya ee ay rabitaankiisa tahay ha toosnaado aayaddaasi markii ay soo degtay ayuu abujahal yidhi rabitaanka annaga ayaa leh haddii aannu doonana toosnaanayno haddii aannu diidnana annaga ayaa rabitaan kale markaas ayuu ilaahay soo dejiyey aayaddaas aynu kor ku soo xusnay oo tafsiirkeedu qodobkaas ayuu abbaarayaa macnaheeduna waxa weeyaan haddii aad gaala tihiin sida aad idinku doonaysaan ee ah inaad jidka toosan ka leexataan dadkina ka leexisaan shaqayn mayso ee sida uu ilaahay subxaanahu watacaala doonayo ee nidaamka adduunka ugu talagalay ayaa shaqaynaysa jawaabta oo koobanina waxa ay tahay qof waliba isaga ayaa xor u ah inuu wixii uu doono sameeyo iyada oo ay haddana sidaa tahay waxa uu doonayo inuu sameeyaa niyaddiisa kuma soo dhacayso ilaa uu ilaahay doono oo ay ilaahay subxaanahu watacaala ka soo fusho mooyaane kadib marka ay niyaddiisa ku soo dhacdana arrinkaa ma fulin karo ilaa uu ilaahay subxaanahu watacaala u oggolaado inuu fuliyo mooyaane yacni wax kasta oo aad is leedahay samee waa waxuu ilaahay subxaanahu watacaala hore u ogaa oo intii aanu niyaddaada ku soo dhicin uu ilaahay rabitaankiisa ka soo fulay sidaa awgeed ayuu ilaahay subxaanahu watacaala noo amray haddaanu nahay mu'miniinta walaa taquulanna lishayin innii faacilun daalika qadan ilaa an yashaaa allah ha odhan arrinkaa berri ayaan samaynayaa ilaa aad tidhaahdo insha allah ama haddii ilaahay idmo qodobkan ah adduunkan inuu rabitaanka ilaahay ku shaqaynayo haddana aynu xorriyad iyo madax bannaani haysanno si aynu si qoto dheer ugu fahanno waxaa jirta aragti aynu hore uga faalloonnay oo la yidhaahdo simulation theory ama humaagga xaqiiqada waxayna dhigaysaa adduunkan aynu ku nool nahay inaanu ahayn xaqiiqo ee uu yahay ismoodsiis innaga xaqiiqo inoola muuqda waxaana ay tusaale u soo qaataan marka aad giim ciyaarayso ninka giimka ku jira ee dagaalamaya isagu ninka uu la dagaalamayo dhulka uu ordayo gaadhiga uu kaxaysanayo iyo dhismayaasha ku xeeranba waxa uu arkaa xaqiiqo si adigu aad aragtaa inay humaag iyo ismoodsiis yihiin oo aad maamulayso adigu nidaamka aad kombiyuutarkaas ku maamulaysaana waa nidaam ku shaqeeya dahsoonayaal ama koodhis la yidhaahdo eberhal balse ninka giimku ma oga inuu nidaamkaas ku shaqaynayo mana ogaan karo sidaasi la mida innagana waxaa jira noolayaal inaga garaad badan sida aynu inaguba uga garaad badan nahay giimka oo inoo maamulayo sida aynu u maamulayno giimka oo sida aynu ugu maamulayno giimka nidaamka ah eberhal ee aanu ninka giimka u garanayn innagana inoogu maamulayo nidaam aynaan garanayn sida la inoogu maamulayo noolayaashaasna aynaan rabitaankooda ka bixi karayn
sida aanu geemku inaga rabitaankeenna uga baxayn. aragtida simulation theory ama humaaga xaqiiqadu waxa ay dhigaysaa sidaas, waxaana la yaab ah in ay mulxidiintu soo qaataan oo ku faanaan, jawaabteediina aynu ka dhaxelay diinteenna suuban ee islaamka. ciddayna maamulaysa ay naga garaad badani waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. nidaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu maamulayo ee aynaan garanayn, weligeenna aynaan garan doonin, waa ruuxda. ilaahayna rabitaankiisa iyo dhankii uu adduunka u jeediyey iyo sidii uu u qorsheeyey kama baxayno oo ma dhaafayno innaga oo haddana rabitaankeenna xorta ah leh. waxa aan filayaa ciddii wax ku qaadasho u baahani inay ku waaya arkayso, balse dhegihii ilaahay waaniyo ayaa waansan. haddaba tiirarka uu iimaanka mu'minku ku taagan yahay waa 6. 6daasna rugniga ugu dambeeya waa qadarka kiisa san iyo kiisa xunba in aad rumayso. waanuna rumaynay oo iimaan buuxa ayaanu ku qabnaa, murtida ilaahay iyo qadarkana kama shakiyayno. sifadaas ayaynuna ku ammaananahay haddaynu nahay mu'miniinta oo nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, qofka mu'minka ah arrinkiisa oo dhammi la yaab ayuu leeyahay. haddii uu wanaag helo ilaahay ayuu ugu mahadnaqayaa oo ajar iyo xasanaad ayaa loo qorayaa. haddii ay dhibi haleeshana ilaahay ayuu ugu samrayaa oo ajar iyo xasanaad ayaa loo qorayaa. sifadaas ayaanu ku dhegannahay, weligayanaanu ku dheganaanaynaa haddaanu nahay dadka mu'miniinta ah. haddaba haddii aynu nahay mu'miniinta ilaahay u hoggaansan, waxaynu ku sifaysannahay oo ku ammaananahay inaynu raalli ku nahay oo ku noqonnay qadarka iyo waxa mustaqbalka nagu soo fool kale ee aanaan ogeyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala sii ogaa ee noo sii qoray. waxaana aanu leenahay, qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wa cala allaahi falyatawakkali ilmu'minuun. waxaad dhahdaa nebi maxamedow, nama haleelayaan wixii ilaahay noo qoray mooyaane wax kale. ilaahay ayaa boqorkayaga ah, ilaahayna ha tala saarteen mu'miniintu. haddii aanu nahay mu'miniinta ilaahay waxaanu ka barinaa inuu sidii khayr noole ee noo wanaagsan noo dooro, jidkii khayr noolehna na mariyo. waxaana ay taariikhdu ka marakacaysaa arrimo badan oo wanaag loo arkayey oo markii dambe la arkay inay dantu sidaas inoogu jirtay. tusaale kooban, dalkii Soomaaliyeed intii uu dhisnaa ilaahay ayuu ka fogaaday, kitaabkiina dabada ayuu ka tuuray, iimaankiina waa laga tegey. kadib dalkii wuu burburay. inkasta oo dalkii Soomaaliyeed ee burburay uu dhibaato weyn lahaa, haddana waxaynu ka dheefnay faa'iido ah inaynu diinteennii u laabannay oo maanta meel kasta oo uu Soomaali taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa lagu caabudaa. sidaa awgeed innagu haddii aynu nahay mu'miniinta waxa aynu mar walba ilaahay ka barinaa wixii inoo khayr leh, isagaa inooga ogaal badana inuu inoo horseedo. xataa marka aynu guursanno waxa aynu ku ducaysannaa inuu ilaahay lamaanaheenna khayrkiisa ina siiyo, sharkiisana inaga dadafeeyo. haddaba ruux yahow mu'minka ahi, weligaa markaad ilaahay baryayso waxa aad xiisaynayso ha weydiisan. laga yaabaa inuu kuu daran yahay, waxaad necab tahayna ha ka magangelin. laga yaabaa inuu kuu roon yahay, mar walbana waxa aad ku ducaysataa, ilaahay arrinkaasi haddii uu khayr ii leeyahayna ii fududee, haddii uu shar iyo xumaan ii leeyahayna iga weeci oo i dhaafi. salaada istikhaarada ee ah inaad ilaahaaga weyn subxaanahu wa tacaala la tashato oo taladaada gacanta u gelisana arrin walba ha kaaga horrayso. mana jirto su'aal diintaada la weydiiyo oo aan jawaab loo hayniniye yaan su'aalaha yaryar ee sidan oo kale u sahlan aragtidaada lagu bedelin. wassalaamu calaykum.